cabdibilaan aa ujeed waxaa iskale ciidanka sida gaarka tobaban haramcad runti koowaad ciidamada aarka sida dibaaxa u duul waxaa naga qaata ciyaal shacaba oo sagaalaad ah oo lixaad ah wixii geesteen sii yaale say ku gey karaan anagoo baaloota rimid aanoola soo celiyo halkaasa xamarna saasaa ku joognaa aragnimada iyo dowladnimada wax dhaamana waa ciidamada booliiska sida gaarka tababaran ee haramcad ayaa xalay dib u soo ceshtay gaari cabdibilaaw ku xirnaa qori dhishiika ah iyo hub kale oo shalay aaday dhinac mucaaradka dowladda ee ku sugan qaybo ka mid ah degmada hodan ee gobolka banaadir gaariga iyo hubkan waxaa watay kabtan muumin ciise oo ka mid ah saraakiisha haramcad kaasoo shalay u goostay dhanka mucaaradka isagoo horay u kaxaystay 5 askari oo mididarawal yahay dib u soo noqoshadan waxay timid ka gadaal markii xalay aagga isgoosyada dabka iyo bakaaraha ay gashay xaalad adag maadaama ay goobahaasi soo buuxdhaafiyeen boqolaal ka mid a askarta haramcad oo si aada u hubeysnaa kuwaasoo diyaar u ahaa duulaan ay hubkooda galay dhanka mucaaradka ay ku soo ceshtaan taliyayaasha ciidamada haramcad iyo booliska gobolka banaadir oo duulaanka xalay qorshaysnaa hogaaminayay ayaa si cad ugu sheegay mucaaradka inaysan ka seexan doonin gaariga iyo hubka aaday dhanka mucaaradka balse aysan wax dan ah ka lahayn sargaalka goostay iyo askarta yar ee la socotay culayskaas fuulay mucaaradka ayaa soo dedejiyey inay si deg deg ah isaga soo celiyaan agabkan ay lahaayeen haramcad waxaa kaloo dhanka dowladda u soo laabtay 5tii askari ee la socotay kabtanka goostay iyagoo taliya farxaan qaroole u sheegay in ujeedkoodu aanu ahayn goosasho balse taliyihii ay la socdeen uu ku qasbay inay raacaan arrimahan isbiirsaday ayaa soo dedejiyey in ciidamada haramcad iyo kuwa booliska gobolkan ay duulaankii ka dulqaadaan mucaaradka iyadoo markii dambe xaaladda ay ku soo noqotay mid caadi ah kabtan muumin oo haystay ammaanka mashruuca dhismaha waddada xiriirisa muqdisho iyo jowhar ayaa haatan ku biiraya askar iyo saraakiil ka goosatay dowladda kuwaasoo laga goostay mushaaraadkii iyo gunooyinkii ay sii jirtay dowladda iyadoo wixii xalay dhacay ay sidoo kale fariin cad u tahay saraakiisha iyo askarta kale ee laga yaabo inay damacsan yihiin u goosashada mucaaradka maadaama la isaga daba tegayo